Jubbaland iyaduna qabaqaabadii bay ku jirtaa Hirshabeelle iyo Galmudugna waxay dhamaystireen shuruucdii hadda golayaasha xukuumadda ay mariyeen baarlamaanka ayaa la geenayaa barnaamijkaasi wuxuu u baahan yahay in la dardargeliyo waxa la wixii la xiriiray oo dhaqaale ah oo resource-aanta la xiriirtayna waa diyaar barnaamijyo badan oo ka horeeya intaan golayaasha deegaanka la dhisin oo dib u heshiisiintu ay ku jirto deegaamada ayaa ku jirta barnaamijkaasi waa barnaamij aan hoos ka xariiqayo inuu isaguna yahay arrimaha muhiimka ah qodob kale waxa weeye arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo dimuqraadiyiinta iyo meeshaynu ka aadi lahayn 2020 waa geedi dheer waana geedi isbedbedeliyay hadda meel la tegayay sida rasmiga ah dalkan hadda waxa uu qorshaysan 2020 inuu doorasho galo hal cod iyo hal qof ah taasi waa siyaasadda rasmiga ah ee dalka oo taala weeye caqabado badan baa ku gadaansan oo ama siyaasadeed ama amni oo u baahan iyagana in la sii dirandiriyo annaga waxaa nagaga aadan wasaaradahaan waxa weeye sharciga la xiriiray doorashooyinka gacanta ayaa lagu hayaa waxaa jira guddi khubro ah oo wasaaradda jooga oo la shaqeeya khubro kale oo iyaguna hay-adaha lala shaqeeya iyo xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasaaradaha dastuurka iyo hay-ado badan oo barnaamijka iyaguna ka shaqeeyey oo tala soo jeedin miiska soo dhigay tala soo jeedintoodii anigu si aana weligeedii aana ku lifaaqin wasiirkana waa kala sheekaystay baa iyaduna meesha taala waxa u baahan waxyaalo go'aamo siyaasadeed oo muhiima in laga gaarana way u baahan tahay arrintaasina waa arrin degdeg u baahan iyadana in wax loo qabto wasaaradda waxaa jooga dad shaqaalaha oo aada u wanaagsan dad khubro ah oo aada u wanaagsan dad aragtidoodu ay aada u sarreyso dad isku duban oo heella weeye waxaan hubaa in ay iyaguna ay gacan fiican ay wasiirka siinayaan waana ku codsanayaa inay siiyaan gacan buuxda ay siiyaan waxaa joogaan u mahadnaqayaa iyagana guddiyo lala shaqeeyo ka mid yihiin guddiga xuduudaha iyo federaalka guddiga doorashooyinka guddiga qaxootiga qaranka oo dhammaantood la ah guddiyada la shaqeysa wasaaradda la shaqeysa xiriirka dowladda oo shaqada la leh dhammaantood waa la mahadnaqayaa iyo shaqaalaha iyo intii nala soo shaqeysan intaasi waa inta guud hal eray oo kale oo kama dambaysa ayaan rabaa inaan dhaho mudane ra-iisul wasaare mudane madaxweyne dalkani sidiisaba maanta waa lagu yahay dalkani waa lagu yahay waana daalleeyahay dadkiisuna siyaasad ahaan iyo amni ahaanba waa dayacan yihiin meel fogna waa laga yimi dhaqaale ahaan nasabool baa nahay kalsoonida shacabkuna way kala daadsan tahay oo kalsooni xumo siyaasadeed ayaa jirta dalkani wuxuu u baahan yahay marka isku wad iyo isu dulqaadasho oo ah furaha u ah in meesha la joogo hore looga sii socdo si taa loo gaaro qof kaliya ama koox kaliya ma noqon karto cidda iyadu arrintaa dhinaanirisa wuxuu u baahnaan doonaa marka talawadaad koox kaliya ma noqon doonto ama ma aha cidda soo aragtay ama og meesha loo guurayo oo meeshaan looga guurayo arrimaha si loo gaaro waxaa loo baahan yahay marka in dalkaani uu yeesho dood caafimaad oo dhab ah xasaasi ah mararka qaarkood xanuun badan laakiin aan qofaysnayn aan siyaasadaysnayn aan danaysnayn laakiin soomaaliyeysan ama berriyeysan waxaan u jeedaa mustaqbalka ku wajahan taa ayaa loo baahan yahay taas ayaana caafimaadka ku jiraa labada doodood oo kala gedisan iyo afraanta kala gedisan dhexdooda ayaana xalka soomaalida ku jira intii burburku dhacay ama aynu ku fkacaynay ama sanadihii ugu dambeeyey waxa ugu xun oo inaan ku dhaco labada waxood waa wadaadka ka fikir duwan ku dhufta shabadda cadaabta ويا هالنابط أما هو مدح نك كفكر دون كل فترة شبضة معارض لماذا أما قال دويسك أنت كذب أنت تاسم سؤال لنا مكياس أنت أيام هذا الكلام كسر كود لها أنت كبعد وحصول ويا وسير كعصب يوسارده وحنا نقدر دارنا يا خير يا نبتقلي يا وراء لما تقول ما تجي
واحد فريسة عزيزي فريسة وحاول صحيحة يا حيوانيتي لما وزير كلا سيحاني مو الرجال كحجان وجوب وكي هاي وحب الله يا وزير كفراء وزارة wasiirka hawsha noo soo hayay muddadii dheereyd kan ma hadlaayeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya wali la ima maqlamiyaan aad u dhawaada miya sibaalka shaqeyn ra'iisulka wasiirka sharafta leh oo aan sagootinayno dhammaan wixii ka jooga xubnaha golaha wasiirada labada gole ee baarlamaanka mas'uuliyiinta gudiyada haya howlaha ay la wadaan ama ay ka wada shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta dhammaan dadka meeshan jooga oo dhan capacity ay ku joogaanba walaalayaal waa salaamantiin dhammaantiin marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cabdi faarax siciid oo ah wasiirka aan maanta meeshan ku sagootinayno oo runtii si aad iyo aad niyad wanaag u ah qalbi furaan u ah
markaan imidba iska xil saaray inuu isoo raadiyo qabanqaabiyo inaan is aragno sidii isbeddelka labadeena mas-uul ay ugu dhici lahayd si aad iyo aad u fiican ka shaqeeyey ra'yigeedii oo urursanna soo qadimay sidii ay ahaydna runtii aan ugu guulaysanno inay u hirgasho waxaan rabaa dadka meeshaan hadda ka soo qayb galay fadhigan waxaa suurowda in shaqooyin la soo baajiyey waxaa suurowda in siyaabo kala duwan aysan raaxo u ahayn inaad shir saacado badan fadhiso walaalayaalo waa mahadsantihiin 100% aan waxaan rabaa inaan iraahdo 2 eray oo kooban ereyga koowaad intiina itaqaana waad ogtihiin siyaasad kama soo shaqayn jirna anugu waxaan ka shaqayn jiray howlo kale waxa markaan aan u doortay inaan hawshaan imaadana runta markaan idiin sheego waa la iigu yeeray sooma doonan kama shaqayn inaan mas-uuliyaddaas qaado dadka mas-uuliyiinta u ah waddankan ayaa gartay inaan dadka shaqeeya hadda tiimka shaqeeya ku soo biiro anna xoogaa waxay ila noqotay nacasnimo iyo waajika gaabsi inaan iraahdo maya idinla shaqayn maayo raalli ahaada aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa inay hawshaas iigu yeereenna waxaan qabaa inay wax meesha ku jiro tahay iyagana waxaan leeyahay intii aan karo oo karaankayga insha allah waxaan ku dadaali doonaa qiimaynta iyo karaamaynta la isiiyey in la iigu yeero mas-uuliyaddaas inaan buuxiyo intaan buuxin karo insha allah qodobka kale oon rabo inaan wax ka iraahdo waxaa waaye wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib u heshiisiinta sidii wasiirku u sheegay waa wasaarad howlo aad u baaxad weyn laga rabo inay dilmargarayso kuma noqonayo madaxyadii wasiirku noo tiriyey oo na sugaya insha allah kolla waxaan isleeyahay haddii lagu dadaalo waxbaa laga dhalin karaa anoo aad iyo aad ugu kalsoon in inta ay khusayso ama laanta fulinta dowladda ah ama baarlamaan ah ama guddiyo howlo gaara u xil saaran ah aad ugu kalsoon inaan ka heli doono wasaarad ahaan supportka aan uga baahannahay insha allah intaas haddaan ku soo koobo